بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka Bashiir Page ee waliba YouTube-ka Cabdinuur Bashiir Maxamuud Dajiye qodobada maanta wararkeena aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona IMF-ta oo ansixisay eber dhibic 97 milyan oo ka qayb ah geedi socodka dinacafinta Soomaaliya waliba qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ka mid noqon doona dawladda Shiinaha oo taageertay mowqifkii dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweyne Farmaajo oo ilka madaxweynayaal u diray Axmed Madoobe iyo Saciid Dani sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobada dibadda aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona ciidamada Itoobiya oo wajahaya eedeymo culus oo ku aadan suuqay geysteen qodobadaas ayaad ku maqli doontaan waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan haddii aan ku hormarno hay'adda lagu magacaabo IMF ayaa ansixisay eber dhibic 97 milyan oo ka qayb ah geedi socodka dinacafinta Soomaaliya guddiga fulinta hay'adda lacagta adduunka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano IMF ayaa ansixisay kaalmo dhaqaale oo dheeraad ah oo Soomaaliya la siin doono taasoo gaaraysa eber dhibic 97 milyan oo dollar oo lacagta Mareykanka kaalmadan ayaa ka qayb ah barnaamijka dinacafinta dalalka saboolka ah ee ay ku jirto Soomaaliya ay ka mid tahay dhanka kale haddii aan fiirino kaalmadan dhaqaale ayaa loo adeegsan doonaa sidii Soomaaliya ugu soo bixi lahaayeen waajibaadka geedi socodka dinacafinta oo u dhaxeeya IMF-ta iyo Bangiga Adduunka ayaa la yiri 25 Maarso 2021 ilaa 24 Maarso 2022 ayaa kaalmadan dhaqaale socon doonta muddadaas ayaa Soomaaliya ku dabooli doonta waajibaadka ka saaran barnaamijka dinacafinta sanad ayaa laga jooga markii sidaan oo kale guddiga fulinta IMF-ta ay sheegeen in Soomaaliya ay gaartay go'aanka qaadashada barnaamijka dinacafinta kolkaasoo Soomaaliya la siiyey muddo 3 sano oo ay ku dhamaystirto guud ahaan geedi socodka dinacafinta oo muddada soo socota marka ku aadan dhanka kale dawladda Shiinaha ayaa taageertay mowqifkii dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Shiinaha ayaa taageertay mowqifkii dawladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo aan marnaba aqbali karin faragelin shisheeye dawladda Shiinaha way cadeynaysaa inay ixtiraamto madax bannaanida iyo karaamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo ku taagan mabda'a ah Soomaali baa leh ayaa lagu yiri hadalkan dawladda Shiinaha ayaa imaanaya iyadoo dhawaan dawladda Soomaaliya ay digniin u dirtay hay'ado iyo dalal ku xadgudbay sida ay sheegtay madax bannaanida Soomaaliya kuwaasoo Soomaaliya ula tacaamula sidii dal aan dawlad lahayn dhanka kale haddii aan fiirino madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in erga madaxweyne oo u diray Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisa dhamaaday ayaa erga madaxweynayaal u diray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland si loo qanciyo oo ay ka soo qayb galaan shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhici doona magaalada Muqdisho madaxweynayaasha ergada ah ayaa waxa ay kala yihiin madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Hiirshabeelle maanta ayaa la filayay in shir ay yeeshaan madaxda dawlad goboleedyada iyo beesha caalamka balse shirkaasi ayaa baaqday waxaana weli taagan khilaafkii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland sida markaa warkani lagu sheegay dhanka kale qodobada dibadda qodobkii aan ku soo qaadan doono ciidamada Itoobiya ayaa wajahaya eedeymo culus oo ku aadan xasuuq ay geysteen shaqaalaha taqaadiirka aan xuduudda lahayn ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano MSF ayaa sheegay in indhahooda ay ku arkeen dil sharci darro ah ay geysteen askari Itoobiyana waxayna sheegeen in 4 qof oo rayid ah horaanta toddobaadkan marka ay dileen koox ka tirsan MSF-ta ayaa 2 bas oo dadweyne ay saarnaayeen hay'adda qaar ka tirsan shaqaalaheeda ayaa la joojiyay kadibna weerar gaadmaha ayaa ka dhacay ayaa lagu yiri mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee deegaanka ku yaala marka deegaanka Itoobiya marka ka tirsan ayaa lagu sheegay ragaabka ayaa qabsaday in ay ka degaan
ayaa lagala degay baska 4 nin ayaana la socotay marka sida la sheegay ay doonayeen ciidamada Ethiopia dadka la toogtay sida ay soo warinayso hay'adda MSF ayaa markaa waxa ay sheegeen saraakiisha ciidamada Ethiopia oo eedeynta markaa loo soo jeediyay ayaa ku jeesay sida ay sheegeen hay'adda samafalka ay gargaarka caafimaadka ee markaa la baari doono sida ay sheegeen xuquuqdaasi markaa la jibiyay oo bilaadanka markaa uu leeyahay ma jiro qof askarta ah oo markaa ka hadlay ayay leeyihiin sharciga ayaana ka sareeya qof kasta sida ay sheegeen loo sheegay safaaradda Ethiopia ay ku leedahay magaalada London guud ahaan warkii Bashiir Beji waliba YouTube-ka Cabdinuur Bashiir Maxamuud Dajiye halkaas ayaa markaa ku soo gabagabeyn doona hadduu eeba yiraahdo nabadgelyo